السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لنمو بجوكتان سود أواد إن شاء الله موقالك لايك نوصارة waxaan ka bilaabi doonaa su'aasha page-ka 47 su'aalaha ayaan bilawnay su'aasha koowaad ayaan ka shaqeynay waxaan ka bilaabaynaa su'aasha labaad waana su'aal aad iyo aad ardayda ay soo weydiiyeen weeyaan waana su'aal ay maanta dhan ardayda ay wada sugayseen weeyaan waana su'aal wax badan oo badan laga yaabay ardayga su'aalaha aqriyo inuu wax badan ku wareeray balse maanta aad insha Allah fahmi doontaa haddii alla idmo waana sababaha keenay su'aalaha noocan oo kale markaan arkay inaan ka shaqeeyo exercise questions inaan ka shaqeeyo do alkanis ku su'aasha waxayna oranaysaa sidan alkanisku ma soo bandhigaan cis iyo trans isomerism-ka ah haddayse soo bandhigaan oo jawaabtoodu ha ay tahay way soo bandhigaan ay tahay sababtu explain sharax waxa yihiin sababtu sharax haye explain sharax waa sharaxad sababay waa macnaheedu haddaysan soo bandhigin oo may aad dhahdidna sababtu sharaxeydana marka isomerism-ka qaybo badan oo lahaa marka aan ka hadlayno isomerism-ka cis iyo trans waxaa loo yaqaanay geometrical isomerism alkiniska qaybo badan oo lahaa isomerkan gaar ahaan waxaa loo yaqaanay marka uu cis iyo trans soo bandhigo alkiniska waxaa loo yaqaanay geometrical marka geometrical waxaa wareeg waay geometrical waxaa wareeg waa marka waxaan leenahay jawaabtu waxaan leenahay haddii aan ka jawaabno aan su'aasha toos u galno u abaarno waqtiga waan hayaaye haddii aan toos u galno waxaan leenahay alkanisku waxaan leenahay no aan leenahay no alkanis do not show ma soo bandhigaan maxay soo bandhigeen waa do not show ma soo bandhigaan cis iyo trans cis and trans isomer cis and trans isomer sababtu explain sharax sababtu maxaa markaan sharaxno because maxaa yeelay waa soo koobaa jawaabta because maxaa yeelay warka ugu muhiimsan kugu soo koobaa because maxaa yeelay alkanis have not malaha restricted rotation wareeg xadidan malaha restricted rotation sababtu waxaa waa alkanisku malaha wareeg xadidan malaha because maxaa yeelay sababtu waxaa waaye marka aan firino no alkanisku do not show ma soo bandhigaan cis and trans isomer sababtu waxaa waa because maxaa yeelay alkanisku have not malaha restricted rotation wareegood ilan geometric rotation means geometric wareega geometric ay sameynayaan mid xadidan ma aha laakiin alkinisku way soo bandhigi karaan sababtu waxaa waaye restricted rotation wareegoodu waa wareeg xadidan weeyaan laakiin kuwaan wareegoodu ma xadidna maadaama uusan wareegoodu xadidnayn ma soo bandhigayaan cis iyo trans waxay soo bandhigi karaan wareega markuu xadidan sheega soo bandhigi karaa ama hydrocarbonka ay soo bandhigi karaan cis iyo trans u dhaqmi karaan marka alkanisku ma u soo muuqan karaan baan leenahay cis iyo trans isomerkaas ma soo bandhigi karaan sababtuna waxaa waaye because they do not have restricted rotation wareeg xadidan ma laha laakiin alkinisku maxaa waaye sababta ay u noqdeen u soo bandhigeen cis iyo trans alkinis sababta ay soo bandhigeen waxaa waaye because alkinisku waxay leeyihiin restricted rotation wareeg xadidan geometric xadidan ayay leeyihiin macnaha geometricoodu waa xadidan yahay waana sababta keentay in ay sameeyaan cis iyo trans inay sameeyaan inaad su-aashaas wax badan aad fahanteen ayaan filayaa su-aasha xigta draw sawir the structure qaabdhismeedka of each compound isku dhisyadan soo socda mid walba sawir ayaana la weydiiyey mid walba oo ka mid waxyaabahan soo socda in aan sawirnaana la weydiiyey waxaan haysanaa
acetylene ayaan haysanaa acetylene waayahay acetylene ayaa naga rabaa marka inaan sawirno acetylene waxaa waaye waa ethine bas waa ethine waa laba carbon oo triple bond noqoto waaye waa marka magaca maxaa waaye waa common name-ka ethine laba carbon oo triple bond noqotay common name-kooda waa kana fudayd waa sawirkeeda waxaas kuma daahayna waa iska fududaynaynaa kaliya inaad fahantaa muhiim ah waa qaabkan ujeedaa hay b aan fiir marka acetylene waa taas sawirkeeda taas marka kuma daahayn waa iska fududahay 3 methyl 1 hexane b waxaa la weydiiyey 3 methyl 1 hexane b waxaa la weydiiyey 3 methyl 1 hexane b waxaa la weydiiyey 3 methyl 1 hexane ayaa la weydiiyey waayahay aan soo qaadana marka b aan ka shaqeyno 3 methyl 1 hexane waxaan target ka dhignaa hexa YNE waa triple bond waa macnaheedu hexa marka waa 6 carbon sama 6 carbon 3 4 5 6 marka 3 methyl 1 hexane 1 hexane ma wanka meesha rabtaa ka bilaabi kartaa numberenta 1 2 3 4 5 6 silsilad ilaa adaa maamule adaa naqshad sawiraayo kaarbonadan kale oo dhan waxa isku haysanaa single bond kaarboonka saddexaad waxa ku dhagan la dhahay methyl kaarboonka afartiis waxa ka dhinaanayso hal dabar oo hydrogen ah kana waxa ka dhinaanayso waxba kama dhinaanay kaarboonka labaad waayo afartiisi dabar oo dhameystiran tahay si fiican fiir saddex oo triple bond iyo halkaan oo single bondiga ah oo kaarboonka lagu kula haysto kan afartiis waxa uu dhiman hal dabar 1 2 3 uu haystaa hal dabar oo hydrogen ah kan afartiis laba dabar uu dhiman kan afartiis waxa uu dhiman labo kana waxa uu dhiman saddex uu dhiman inaad fahanteen afilaya darowinka waa fudud yahay si aan aadno waxaana la weydiiyey c 4 methyl 2 hexane 4 methyl 2 hexane ana la weydiiyey waayo waxaan sawirayaa hexane ayaan sawirayaa 6 carbon 4 5 6 marka 1 2 3 4 5 6 marka waxaana la weydiiyey carbonka triple bond wuxuu ku dhagan yahay lahay carbonka marka 4 methyl 2 hexane wasama carbonka labaad uu ku dhagan marka numberenta meesha ka bilaab 3 ana halkaan ka bilaab aad halkaan ka bilaab kartaa darabtid mar walba ila fahan fadlan 5 6 haye saddex marka la haayo carbonka labaad marka la haayo 2 hexane marka la haayo waxay ka dhigan tahay labaad iyo saddexaad inta u dhaxaysa triple bond ku dhagan tahay macnaha triple bond iga 1 mulugu dhaji kara halkaan 1 iyo 2 hadaan ku dhajiyo mid ka yaraal magacaabi lahaa marka 2 iyo 3 inta kuma 3 iyo 4 kuma dhaji kart marka waxaan ku dhajinaynaa 2 iyo 3 inta u dhaxaysa triple bondiga waxaa kaloo lahay 4 methyl carbonka afraad waxaa ku dhaganaa la dhahay methyl ayaa ku dhagan saxiix kadib maxaa inoo haarsan halkaan carbonkan afartiisi dabar waxaa ka haarsan waa kan CH3 noqona marka fiirino ay carbonka CH3 noqona kan waxba uma dhina kan waxba uma harsanaanayaan kana hal dabar u dhiman kana waxa u dhiman laba dabar u dhinaanayso kana waxa u dhinaanayso saddex dabar waa iska fudud soo ma jeedid waa qaabka marka 4 methyl 2 hexane inaad si fiican u arki kartaan ayaan filayaa waxaan aadaynaa su'aasha xigta ayaan aadaynaa d ayaan aadaynaa oo ah 3 octane bas d waxay noo taala 3 octane d waxay noo taala 3 octane kaarboonada meeqa oo 1 2 3 4 halkaan aan ku sameeyo si aan u yaryareeyo 1 2 3 4 5 6 7 8 carbon marka waxaana la weydiiyey 3 octane waxaana la weydiiyey 3 octane ayaana la weydiiyey mo ay kaarboonada oo dhan horta maxay noqonayaan kaarboonada horta soo numberay 1 2 3 4 5 6 7 8 inaad si fiican wada arki kartaan filaa kaarboonka saddexaad waxaa ku dhagan octane saddexaad waa marka la labaad iyo saddexaad miya maya saddexaad iyo afraad inta u dhaxaysa waa inta kale oo dhan waxay qaadanayaan single bond isku haystaan kaarboonadan kale oo dhan waxay isku haysanayaan single bond kan meeqa ugu dhiman afartiisii laba dabar kan waxba uma dhinno kanna waxba uma dhinno kanna afartiisii waxa ugu dhiman labo kanna laba ugu dhiman soma kanna 1 2 haystaa
laba u dhiman kana waxaa u dhiman saddexa u dhiman inaad fahanteen aan filayaa qaabkaasay noqonaysaa markaan ka hadlayno labadan waxaa waaye wax hydrogen waxa uu sii weyno 3 hal ugu dar 4 3 hal ugu dar 4 sirta ugu weyn ee sawirada waxaa waaye carbon walba inaad ku xisaabtantid 4 dabar inaad ku xisaabtantid waayahay inaad fahanteen ayaan filayaa waxaan aadaynaa su'aasha xigta ayaan aadaynaa insha Allah oo ah su'aasha afraad su'aalaha name each alkyne magacaaw alkaanyadan soo socda mid walba magacaaw ayaan la weydiiyay haye midkaana ugu horeeyo halkaan isla halkeedaan ku magacaawno isla halkeedaan ku magacaawno midkaana ugu horeeyo number 8 ta ka bilaabayna baranjeenku waa iska cad yahay 1 2 3 4 waxa ugu dheer baranjeenka waxa ugu dheer 1 2 3 4 5 baranjeen uma baahan maanta in la ogaado waa iska fududahay barantiga number 8 ta muhiim ta ka bilaabayna dhinacaan ka bilaabayna sababto dhinacaan triple boundga ka dhawaad mo 2 3 4 5 naqshadan way saxayn boogo si fiican ayuu qoray naqshadan way saxan tahay tan way saxan tahay tan way saxan tahay marka maxaan leenahay marka magacaabayna waxaan leenahay 1 bentine waxaan leenahay 1 bentine kaliya hay'atan maxaa number 8 ta ka bilaabayna number 8 tan waxaan ka bilaabay dhinacaan ka bilaabayna sababtu waxa waa triple bound ka dhow 2 3 4 5 6 way aan magacaawna marka 1 2 3 4 5 6 way marka magacaawin intuu ku dhagan yahay triple bound-ga labaad iyo saddexaad intuu dhaxayso fiican fiiriya waxa uu ku dhagan yahay triple bound-ga labaad iyo saddexaad intuu dhaxayso ku dhagan yahay waa ka waa idin soo dhaweynaya si aad u aragtaan triple bound wuxuu ku dhagan yahay kaarboonka labaad iyo saddexaad intuu dhaxayso waxaa la xusaa marka kaarboonka waxaan xusi doonaa haddii aan la idmo kaarboonka labaad sababtoo ah numberka yar ayaa mar walba la xusi jiray marka waxay noqonaysaa markaan fiirino marka 2 hexane inaad fahanteen ayaan filayaa waayahay halkaas ay noo joogaysaa hal qayb oo yaraa noo hartay anigoo mashquulsan darteeda videoga intaasaan iska soo gaabinaynaa halkaas ay noo joogto qaybtan waa mahadsantiin walaalayaal halkaa ayaan geyn doonaa insha Allah qaybta xigtaan ku soo xiri doonaa exercise questions haddii aan la idmo insha Allah haddii aan la idmo